بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan oo aan meel kasta adduunka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan kooban aan ku fiirin doono arinta ka taagan Somaliland gaar ahaan magaalada Berbero iyo saldhigga ay ka furan doonaan ciidamada Imaaraadka. waxaad ogtiin walaalayaal in waayahan dhanba la hadal hayay warkan isla markaana khilaaf fara badan uu ka abuuray maamulka Somaliland dhexdeeda. waxaan barnaamijkan ku eegi doonaa faa'iidada iyo khasaarada ay Somaliland ka heli karto arintaasi. walaalayaal horta shaki kuma jiro in Imaaraadka halkaas waxa uu rabo inuu ka dhisto inuu dantiisa uga dhisanayo tan Soomaaliyeedna uga dhisanayo. Imaaraadka haduu Somaliland wanaag u hayo uu ictiraaf lahaa ictiraaf ayuu siin lahaa. wuxuu kaloo wanaag u suubin lahaa Soomaalida la joogtay wanaag u suubin lahaa wadankiisa laguma dhibeen. marka waxaad moodaa hadaan Soomaali nahay in anagu mar walba ضعيف نهاي او متقانا awoodo shisheeye oo naga dhaqaalo badan aanu xogaa maartay aanu u dabcayno walaalayaal waxa daad dhimanaysa dheerarka iska duwa ugu yaraan Soomaaliland waxaan ka jeclaan lahaa inay tiraahdo adeer macaana ictiraaf ma siinaysaa ictiraafkan 25 saraadinayni miyaad siinaysaa anagana wadan ku siinay hadii u dhihi lahaa marka Soomaaliland wallahi waxa la ilaaday Imaaraadka dhanba ictiraafayo daarintan ictiraafkooda ay dantooda ay ku gaareen. لا أرنتاس ما دعين نمان كان واحد يقوله شيء دقالة يريال يقوله شيء دقالها سيقاتين إن وحلو بلنقاديو مركب واحد هاي فإذا ده Somaliland كسو جاريسة يخسارها وحبضن خسارها يا بدن محايا لا أود شيء مركب أي ودن كذا تمادو أي حرم اللي تركديسته هدي أي اسكو دعان ودمada dariska mid kamid ah adiga dagaalkii cadaawadi waxyaad kamid tahay sidoo kale ma ogaan kartid mana xukumi kartid awoodna uma lihid inaad la socotid dhaqdhaqaaqooda badda ay sun ku guri karaan waxa weeye malaaygeena ay daldalan karaan khayraadkeena ay la bixi karaan wax aanan la mahadin ayaa meesha ka dhici doona. marka waxaan leeyahay in Somaliland iyo xukuumadda iyo shacabka arintaas in dib loogu laabto bal dib loo qiimeeyo yiraahdo wareedha heshiiskan ma heshiisna anfici doono. sidoo kale waxaa la qariyay oo meesha muuqata in Somaliland iyo Soomaaliya iyo Imaaraadka ay heshiiskan si wada jir ah ku ogolaadeen. maxaa yeelay Somaliland ma ahan dawlad la ictiraafsan yahay saas darteed ma gali karto heshiis caalami ah gaar ahaan markay maraysa ciidamo iyo awood shisheeye inay wadan soo degaan. Soomaaliya oo dhan waxa loo yaqaanaa Soomaaliya ayaa loo yaqaanaa lamana ictiraafsana Somaliland. saas darteed halkaas waxa ka cad khiyaano qaran inay Soomaaliyana gashay Somalilandna ay mataqaana meesha ka qaaday Imaaraadkeena oo arintaas ka faa'iideystay. sidoo kale waxa isweydiin la isu taga Imaaraadka ayaa lagu leeyahay waa isu tageen waa Arab Unit maxaa la yiraahdaa Emirates waa imaarooyin isu tagay waa dawlado isu tagay anagoo Soomaali ah oo 10 milyan ah ayaan kala qaybsanahay. walaalayaal waxa loo baahan yahay xataa inay noo noqdaan tusaale noo noqdaan oo ama taqaana dhan raggaas waa midoobeene oo ayakiiba israacay maxaa anagana kala qaybiyay. sidoo kale waxa loo baahan yahay arrimaha noocan oo kale marka laga hadlayo in laga saaro caatifada laga saaro Somaliland iyo Soomaaliya qabiil iyo hebel xisbi hebel kulmiye ucud wadani waxa soo laga saara waa in maslaxada guud ee dalka la fiiriyo. hadii aan taa la fiirinin wadanina uu qadaya kulmiyana uu qadaya ucudna uu qadaya muqdishona uu qadaysa ناصر عدادنا يا وقضى يا دبعا ده Soomaalida isku mid yahay. marka walaalayaal waxaan leeyahay hal ilaaliyo maslaxada guud ee danta dalka Somaliland haday tahay dawlad madax banaan waxaan leenahay maamul madax banaan oo Soomaaliya ka goostay danta shacabka ka hadla. anaga waxay dan ugu jirtaa Somaliland oo xoog badan Somaliland oo awood leh Somaliland oo mataqaana alxamdulillah nimcaysan laakiin marna Somaliland وضعيفة ومتقانا لمالو ولا متقانا لا ركو عياران وحوغاش اللي مال اسكاقاتو تاثر عليك منين ولا يا الله سبحانه وتعالى waxaan ka bareynaa dalkan inuu nabad nooga dhigo mar walba hal ogaado maslaxada dalka iyo dadka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.